وصقرية update ما سمينية إن waxaan rajaynaynaa wax wanaagsan salaasa inay ka soo baxaan waana loo diyaar garoobay waxyaalaha ugu fiican ee doonaynaa waxa kamid ah in ugaas ku dhawaaqo inaan ka goonayno Soomaaliland ugaas ku dhawaaqo waan rajaynaynaa iyada waa doonaynaa in waayo maamulkan Hargeysa ee Soomaalidiidka ee argagixisada lama noolaan karayno wax inaga dhaxayn karaa ma jirto haba yaraatay marka inaan ka baxno inagana dambe noo tahay Djibouti dambe u toon nabadgelyada Djibouti bay dan u tahay inaan inaguna maamul ka sameysano sayla iyo deegaankeena ka sameysano waxaan ka faro noqonaynaa Djibouti oo dambe u tahay marka inaan idin update gareeyo yani tala sugayo ta koowaad wata talabaad dawladda Djibouti oo sameyso buffer ay sameyso inta dawlad Soomaaliyeed la helayo ay noqoto gobol ka tirsan Djibouti ay noqoto gobolka Salal gobol ka tirsan dawladda Djibouti ay noqoto oo Djibouti maamusho waxa jira dalka Turkiga 47 baan u maleynayaa Cyprus wadan meel la yiraahdo jirta dad Turkiga ayaa ku noolaa wala dhibaateeyay dadka Turkida wala cunsureeyay oo waxa cunsureeyay Greegi waayo Greeguna meesha waa degan yahay marka dalka Turkiga ayaa ka gooyeba qaybna waxa jirta Turkiga ayaa jirta dalkan la yiraahdo Cyprus oo dawladda Turkiga xakunto oo lacagtoodu ka socota jirta waayo dadkii asal ahaan ka soo jeeday Turki ayaa meesha lagu cunsureeyay marka inagana meesha deegaankeeni weeye waxaan min kale inagu haysta oo ninkii abara walahay meesha midaysaqa yimid dawiri gada buursibaale waa deegaankeeni marka taana waa suuragal in buffer la sameeyo waa wax fudud inaan ka goono oo ugaas ku dhawaaqo waayo xiinka awood waan haysanaa aan ku gooy lahayn de kamay miyaan ka Italian la saanood boqol askari bay wixii la saanood inagana kuwan kumba inoo jooga marka waan ku qasbanahay wixii ugaas ku yiraahdo inaan fulino marka reer xeel gal horta iyo gaarsa aad iyo aad baan idinku faraxsanahay waxaan la xagay mareen waayo halkaas ka soo jeeda waxaan la halkay xeel gal iyo gaarsi xagay mareen ma seexdeen muhiim baad u tiin idinku halganka muhiim baad u tiin waxa muhiim ugu tiin wadadii baad degantiin oo halganka idinku xagga safka horaad ku jirtaan inaad maqnaata ma hayn waad shalay waan filayay inaad soo laydin arko waad absanteen laakiin imika waan ku faraxsanahay inaad timaadaan marka hawshu sida u socoto aniga idin la socodsiin doona saacad walba ama marka waqti yalaba soo galaya waxa kale oo arkayo warciisii sayl jooga munaafiqiin baad noqoteen sooniga odagii mujrimka meel kula tukanay in arkay te munaafiqad og tahay sida loo tukanaysa beenaalaha munaafiq ilaahay muna quraan ku sheegay dadkii ilaaha dhiigiinu waa xalaal baad meel kula tukanaysan de say u dhacday odagii mujrimka sakraankii mujrimka Hargeysa ka yimiday soo ka meesha fadhiya kitaabka akhriyay mad kitaabka qaadaan nijaaska sidoo oo ka fadhideen ma ina ceeb ahayn dadkii idin dhiigiinu waa xalaal sidoo la tukanaysan warbalaha munaafiqiin baa tinayso idin kora idan waxaan saxmaa inaad uga dareertaan masaajidka haduu soo galo uga dareera masaajid kala taga meel kale ku tukada ma idinko og munaafiqada ku ab tukanaysan takale Ibrahim baan doonayaa inaan weydiiyo Ibrahim aw kaariyoon dad aan garanayo anoo yar baan is garanayna uu naga weynay isagu laakiin uu garanaya Ibrahim Sheikh Ibrahim Sayli waxaad u furtay abtiyaanga reerkii aad ka dhalatay baad u furtay Samaroon gada buursadu u furtay wayna duulimaad beeri meesha ku yimaadeen markay lahaayeen ciise dhigiisu waa xalaal wadag joogtay hada u furaalkaas wadag joogtay sheekhi marka Sheikh Ibrahim Sayli dagaalkii baad galisay qabiiliga aha yaad galisay marka adigu dhiga musarrayaal ma wuxuu ku yahay xalaal ya Abdurrahmaan iyo kuwii alla dhalatay halka kula alla joogaysay ee meesha ku wada nooleedeen xalaal buu dhigoodu ku yahay seebad u dhageysanaysa marka Ibrahim rag leh dhiga Ciise xalaal noo ah oo waan ku janna tagaynaa adigana ku aad joogtay oo u funtay maqaamkii Sheikh Ibrahim Sayli aad furtay وانا كجواب هذا مركه ابراهيم سؤاشا كجواب دوغا مصري على حلال كو يادك اذا وادي اag joogo odayaasha sidala ciisa dhigoodu waa xalaal oo carruurta iskuulka dhigatay la laayo waa xalaal oo ilaahay baan u dhawaanayna
وهل الجنة كنا قرينا ماشي مقام كفردي هل في لقوت كنجره حاج علي بدارتك تجنجري أو قاري هل كي بهد هل كي لا ينسدا أنا ولا جوكت هذا أنا بلا بدا أفرق marka adiga dhiiga musara yaalay xalaal buu ku yahay saaniga dhiiga xalaal ku noqonay taas laga rabaa adigu qodad joomeel joogan ku arkay waana qalad inaad joogsato meel wadla hada shadadka sidoo hal qaybabad ka ahayd ba dhibaatada oo adiga halka ku soo ururinay dadka duulimaadka ku invaderska adiga halka ku ururiyo keenay marka deeda laga sugay joogto xagaaga talaadna wadi salaamaya tulka iisow وانا سلاسل سكتان وروانا اكسن بان هيا لكن confirmation بانو بهانا وحوانا اكسن بان لغوص يا سلاسل ايمان دورة او نغلي دونتان وحي نقول عيدا درباحة يدوى لنو توسي وداجي سخران كها ماشي جوغي وحي وكوها اللي وحادي ماهين وداجي كلنا دوهر دابان مولاي وداجي نعس كهاي عرو الطبان كافية الطبان كويتشي لها جبهات ارقاقي حساء ارقاقي حسو بالمعنى كلمة oo al-shabaab iyo balaayo oo dhanba iyaga horkacayo xamar dadka guwaa waa iyaga iminkana Suudaan bay lacag ku qaateen oo gubaan oo halkan rasaasta laga raraa Jabuutina way ku soo socdaan marka waa ku qasbanahay inaan ka hortagno qasabay bay nagu tahay marka jawaabta sugeena waxayna yiraahdaan ugaaska ayaan ka war sugeena kalmadu inay yiraahdo oo man qaadanayna aadna wadi salaamaya waana diyaarna waanahay